agteyda way ka fududahay inaan ku dhaho waan ku jeclahay. dibnahaygu dhihiddeeda wax culaysa kuma dareemaan, si la mid ah kelimadan agteeda qiimo kama laha. tani cadowtinimo iyo qalbi aangag midna igama aha, waa dabcigayga iyo sida runta aan u noolahay. sabab ayaa jirta aan kelimadan u nacay. ma rabo inaan ilameeyo, ilinteedu xilli hore ayuu dhul oomanaa waraabisay. ma rabo inaan dareemo in qof iga maqan yahay. kelinimadeedii hore ayaan u xiisay, oo kuwaan qalbigayga siiyey ayaan waayey. ma rabo inaan murugo, ciil, calaacal iyo qoomamo la noolaado. mar hore ayaan intaasiba la soo noolaa, waana dhibsaday la noolaashahooda. jacaylku waa wax wanaagsan, in qof quman la jeclaadana waa waxa lagu dareemo wanaaggiisa. inta badan xidhiirada koowaad, labaad ama midda saddexaadba waa ay burburaan, xitaa kan afaraad waa macquul inuu burburo. tan micnaheedu ma aha inuu jacaylku xun yahay. jacaylku kuma dhaco qof xun. qofka qof jeclaado xumeeyana waxa ay jacayl ma aha. jacaylku waa kan sababa inaad qof naftaada ka jeclaato, dadka ehelkaaga ah ka xigsato, wax walbana aad la qaybsato. jacaylku waa kan sababa inaad cidlooto oo aad dareento inay wax kaa maqan yihiin marka aad weydo qofka aad jeceshahay. jacaylku waa dareen boholyow ku taagan, waa dareen sababa in kala fogaanshuhu uu xanuun leeyahay, waa dareen sababana in aan la iska raahsan. jacaylku waa kan ku bara qiimaha qofka, ku jeclaysiiya kuna dareensiiya in qofkani dadka kale kaaga dhow yahay. jacaylku waa kan mirihiisu ay yihiin wax wanaagsan oo dhan.